بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ugu horeyn ciddii soo qabanqaabisay iyo dadweynahan xaadirayba waa u mahad celinayaa kadibna kelmaddeenu waxay ku saabsanaan doontaa insha allahu tacaala bayna atasbiixi waalrida xidhiidhka ka dhexeeya in la tasbiixsado tasbiixu subxaana allah waa ilaahay oo waxaan u cuntamin ama u qalmin laga dheereeyo waa tanziih labada erayo subxaana allah walxamdu lilah alxamdu lilaahina waa ilaahay oo wuxuu ku sifoobe kamaal iyo wanaaga lagu ammaano subxaana allahina waa ilaahay waxaan u cuntamin ama u qalmin oo laga nasaha mase laga dheereeyo dunida aynu ku noolnahay ilaahay wuxuu inoo tilmaamay in laynoo keenay in layna itixaamo kullu nafsin daa'iqat lmowt wanabluukum bishari waalkhayri fitna wa ilayna turjacuun dadka qof waliba geerida waa dhadhaminayaa baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala inta geerida ka horeysana nabluukum bishari waalkhayr sharka iyo khayrka labadaba waynu ku imtixaamaynaa baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala haddaad nimco heshana waa imtixaan hadday dhibi ku soo gaadhana waa imtixaan labaduba waa imtixaan mid waa imtixaan waxaa la eegayaa inaad kibirtoo qooqdid ama inaad tawaaducdid oo ilaahay u mahadnaqdid oo shukri la timaadid waa markaad wax hesho nabad iyo caafimaad ka dharagtid xoole heshid cagsigeeduna waa imtixaana waxaa la eegayaa inaad sabirtid adkaysatid ilaahay subxaana wa tacaala qada'uhu wa qadaruh inaad raalli ka noqon kartid qur-aankana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inooga warramayaa ambiyo tiro badan oo labadaba lagu itixaamay iyo dad saalixiina dad xoolo iyo madaxnimo lagu itixaamay sida nebi sulaymaan nebi daawuud dulqarnayn taaluut waa madax muslima oo soo martay caalam alislaami ama dunidii muslimkaee soo jirtay dunidana ka teliyey meelo badan oo ka mid ah oo la itixaamay nimcana lagu itixaamay kuwo kale oo dhib lagu itixaamayna ilaahay uu ka warramaya qur-aanka qaar la dilay fariiqan taqtuluun qaar la xabsiyey nebi yuusuf qaar xanuun lagu itixaamay nebi ayuub basharka waxa dhib soo martoo dhan iyo waxa barwaaqo maraba ilaahay ambiyu tusaale uga dhigay haddaba dhibaatooyinka waktigay jiraan dadku in badan wuu warwaraa cidhiidhina wuu dareemaa maanta dunida aynu ku noolnahay dacal walba muslim baa la dilayaa waxa raadiyo iyo t v ka warramaya waa muslim qaxaya iyo muslim la dilayo cidda dareen islaamiyay ku jirtaa markaa ama ka damqanaya dadka muslimiinta iyo dhibta gaadhaysa waa warwaraya waxaynu ka warramaynaa markaasi warwarkaa dawadiisa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wassalaam wuxuu ka soo baxay magaalada u dhashay ee maka ah dabeetana dadkiisii baa ka hor yimi dagaal kala hor yimi dhibaatayn kale kala hor yimi aflagaadayn iyo ceebayn kala hor yimi isagoo rasuul ilaahay soo diraya oo leh ilaahay keligii caabuda ayay kala hor yimaadeen inay idhahdaan beenaalaad tahay saaxir baad tahay kadaab baad tahay waxaa qur-aanku uu ka warramayo oo dhan qofka bini aadamka ee dad sama u sheegaya wanaag u wada ee haddana dadkii wanaagga uu sheegaya ay ku leeyihiin beenaalaad tahay ama kadaab baad tahay ama saaxir baad tahay ama waad waalantay yaa ayuha aladii waxay tilmaamaya warkan kitaabka lagu soo dejiyeyo innaka la majnuunun bay leeyihin waabaad waalan tahay waxbaa kuu dhiman cidhiidhi buu nebigu ka dareemay markaasi calayhi salaatu wassalaam saxaabadiisa hortiisa lagu toorjargaraynayo o lagu leynayo aan waxba u tari karaynin waxaa hortiisa ku dhimanayay magaaladu joogay qoysas dhan oo la toorjargareeyo sida reer aalu yaasir oo kale wiil baa ka badbaaday
Camaar ibnu Yaasir baa ka badbaaday odaygii islaantii wixiiba torjarka lagu laayay qaar kale waa la cadaabayay sidii muadinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam Bilaal al-Habashi oo kale dhagxanta la saaro Allah Allahu laha waxaasoo dhib oo soo maraysay haddana waxa ka sii dhib badan marka dadka qofka kuugu xiga uu noqdo ka kuugu adag nabi maxamed adeerkii ruma markuu quraysh ka qusto dadka kale sidii la hadal carabtaas xajka timaada ama ka timaada ama meelaha timaada la hadal adeerkii baa daba socdo le kan ana adeer waa beenaale waxba ka dhageysanina waa nin waalan waa Abu Lahab waa adeerkii ay abihi walaaliin oo la waa wiilkayagii waana idinka og waxaad odhan lahayd haddii nin uu ku yimaado adeerkiina daba socdo oo adeerkii ku leeyahay wuxuu sheegaya waxba kama jiraan ilaahay subhanahu wa ta'ala markaa wuxuu u soo dejiyay quraan ka warramaya laabtiisu sida ay u caafimaad lahayd diiqan iyo cidhiidhiga tan iyo dhibtan qofka muslimka ah haysta si uga bixi kari lahaa waa dawaa yustashfa waa dawo lagu caafimaado ama tiriyaaq sunta lagaga bogsado ilaahay wuxuu leeyahay fi suurati al-hijr ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم وأغنى هيبا إلهي لي أنك يضيق صدرك لابتو إنك عريرتوميسو وحيكو هدليان درادد هذا إلهي رسول كيسية بشر كبا إلهي كاد دورتي أفضل وحي بن آدم آدم دلي وفضل بدن إن هدنا لغو عاية أو لغو تلماما وادوالانتهي أما وحبا قولي من أما وصاحر أما وكذاب إلهي وحلي وأغنهين لابتكو عريري يوميس ووحي كو هدليان لابتادا عريري أتكدريمي دونتو إما حد وكوة فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين بإلهي إلهي التصبيح سو أديكو كله هيا مسكو مريا ما هد نقيس يا حمد قيس كلمتان سبحان الله وبحمده أديكو له سمع بإلهي وكن من الساجدين كوا السجود ينا كمد نغو labadan shay ee ilaahay uu tilmaamayo waxa weeyaan waa labada laabta caafimaadiye wax kasto oo ciriiriyo bini aadamka soo mara uu kaga bogsado hadii uu maxay dhadhan ay u sameynayaan haduu yahay dadka salaada dhadhamiya tasbiixda dhadhaminaya quraan badan baa ilaahay soo dejiyo nabiga ciriiriga haysta uu ku tilmaamayo qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين كل هذه الآيات الله وحكا والرمية عديدك نبيك هيستي عليه الصلاة والسلام عديدك نبيك هيستي iyo ceebtan sidoo nacba iyo muslimkan la dhibay iyo waxa lagu hadlayo iyo waxa dood laga dhiganayo muu lacag haysto iyo ma malaayiga soo raacda iyo dadka rumayn waayay ilaahay wuxuu uga dhigay markaas amar lagu siiyay tasbiixso adigoo ku dheehaya xamdiga alle oo sujuud kaas ba tiriyaaq u ah ama caafimaad u ah laabtaada iyo waxay ku hadlayaan oo dhabkaasaad kaga bogsanaysaa walidalik baa nabigu calayhi salaatu wasalaam marka arrin qabsato idha hazabahu amrun badara ila salaa marka dhibi ku dhacdo waxa uu degdegi jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam xagga salaada waxaana ilaahay quraanka ku tilmaamaya mas'aladaas iyo aad loogu boorinayo quraanka dhul badan kaga soo aroortay fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik qabla tuluu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub wa min al-layli fasabbihu wa adbar as-sujud fi surati qaf ilaahay wuxuu leeyahay sabir waxay ku hadlayaan oo ilaahay u tasbiixso adigoo ku dheehaya ilaahay mahadnaqiisa waagu intaanu bariyin ama cadaadi soo bixin iyo inta aanay cadaadi dhicin iyo inta gabal ku dhacay habeena
iyo waadbaar الsujuud salaadaha dabadood tasbiixda badi baa ilaahay leeyahy fasbir ina wacd allahi xaq واstغfir لذنبك وصبح بحمد ربك بالعشي والإبكار في سورة غافر وفي طور واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وصبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم وفي سورة الإنسان فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا صور كاكلا قديسانا إن صوت المامني دمان تود إلهي نبي محمد وحفر يا إنو صبره مركا لبادنا وحلا فرا يا إنو قرقار سدو صلاة هي تصبيح صلاة هي تصبيح إنو قرقار سدو تا معنى هيدو حويان عديدي كستوقفك بنادم كي قالوا هدو تصبيح دا بديو وكعافي ماضية هدو تصبيح دا بديو laabtiisu way caafimaadaysaa waana dawadii la siiyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ee loo tilmaamay inay tahay waxa uu ku caafimaadayo bale waa dawada kurbo oo dhan lagaga baxo balaayadu markay kugu habsato ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamaya wadannuuni id dahaba muqaadiba fadanna an lan naqdira calayhi fanaada fi ظulumaati an laa ilaha ila ant subxaanaka inii kuntu min alظaalimiin nabiyullaahi yuunus baa ilaahay qur-aanka kaga warramaya oo markuu tolkii ka cadhooday ay waxba ka maqli waayeen intuu cadhooday ka tegey isagoo moodaya inaan loo qabsanaynin ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waanu qabanay dabeetana waa kii doonta fuulay saynu wada naqaano doontii dabeetana laga tuuray ama ka dhacay dabeetana baddu liqday badda gudaheedii haddana nimiri sii liqay qof badi liqday awal bay badi ahayd ilaan geed la cuskadaana meelaad waxaad ku badbaadaa jirin iyadoo baddu ku liqday haddana hadduu nimiri afka ku geliyo calool nimiri buu galay markaasuu dhawaaqay baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min alظaalimiin fanaada fi ظulumaati antani waa mufasiradii waxa uu ku dhawaaqay waa maxay laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min alظaalimiin ilaahay waadunba xaq lagugu caabudaa subxaanak xumaka hufnaantaade nasahnidaada iyo weynidaade inii kuntu min alظaalimiin waxaanan ku jiraa ma aha ilaahu dulmi aadi dulmidaye waa aniga dulmigaygii buu leeyahy qofka mu'minkee dhabtahi wuxuu rumaysanyey ilaahay inuu yahay maxay laysa bidallaamin lilcabiid wax allaaliya waxaad idinku jiraa inuu yahay fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir wax allaaliya waxaa mashaakil ku qabsadaa waxaad geysatay in wax ka midoo lagu horumariyay inay tay weliba in badanna inuu rabbi kaa dhaafay wayacfu can kaiir dadka badhna waa loo ururiyaa waxaasoo dhan oo naarta lagaga wada jaraa dadka badhna adduunka lagaga sii jaraa nebiyullaahi yuunus wuxuu ku dhawaaqayaa markaa meeshaan ku jiraiyo dhibta ay haysataa waa waxaan anigu geystay ilaahu dulmiaad adigu i dulmiday maaha ilaahu afcaashaada odhiyo dhammaantaa xuma waad ka dheertay subxaanak buu leeyahy ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu jawaabayaa markaa wixii lagu badbaadiyey nebiyullaahi yuunus inuu yahay maxay tasbiixdaa ilaahay fii suurati saad ku tilmaamaya haddana falowlaa annahu kana min almusabixiin lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun baa ilahay yidhi falowlaa annahu kana min almusabixiin haddii lala-yahay baa ilaahay leeyay markuu dunida joogay ama nabadda qabay ama caafimaadka qabay haddaanu ka mid ahayn kuwa tasbiixsada kuwa rabbi u tukadee tasbiixsada haddaanu ka mid ahayn lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun halkaasaan ku ciqaabi lahaa baa ilaahay leeyay inta laga soo saarayo idan sababu najaati waxa uu ku badbaaday ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ku badbaadiyey waa maxay waa inuu ahaa min almusabixiin idan kurbadaa lagu faydaa ayan kaanat kurbo ku haysato oo dhibaato ha noqoto oo jasadiya jidh ahaan kuu haysata
ama ha noqoto mid laab ahaan ku haysato nafsiya psychologically problem ku haysta oo aad xamili kari lahayd oo qaadi kari lahday waxa lagaga badbaadaa inaad tasbiixdaada badisid bal quraanku wuxuu inoo tilmaamayaa inuu xidhiidh ka dhaxeeyo inshiraaxu sadriga qofku inuu farxo laabtiisu ballaadhato inuu rida dareemo iyo tasbiixda in xidhiidh ka dhaxeeyo ilaahi subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi moxamed wuxuu tilmaamay in laabtiisa loo sharxay alam nashrax laka sadrak nabi muuse waa ku ducaysanayay rabbi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani ilaahu laabtayda ii waasiciyo ii sharax cidhiidhi hay dareensiin ilaahay nebi moxamed wuxuu u tilmaamayaa markaas sidoo laabta ugu sharxoomayso siday tay wa min waraa'ihina inaga fii suurati طaaha ilaahay wuxuu leeyahy faصbir calى ma yaquuluun waصabix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla guruubiha وmin aanaaءi الleyli faصabix وaطraafa الnahaari lacalaka tardaa baa ilahay yidhi waxaa ilaahay leeyahy sabir oo tasbiixso oo tuko oo cibaadayso waagu intaanu beriyin iyo gobolku intaanu dhicin inta ka dhex leh iyo habeenka gobol ka mid ah iyo daclada maalintii wakhtiyada salaadaha iyo cibaadaadka la sameeyo o dhan aayadda waa soo hoosgelaya intaaba tasbiixsaa la yidhi maxaad helaysaa markaa lacalaka tardaa baa ilaahay yidhi kay tardaa si aad raalli ahaanshiye u heshid idan bayna alridaa watasbiix bay aayaddan isku xidhaysaa iyana qofku hadduu rabo cidhiidhiga nafeed inuu ka baxo warwarku inuu ka dego inuu ka mid yahay tasbiixdu waxa ay ku degto waana wax la faray qofka muslimkaa fii xayaatihi kulliha ama fii yowmihi wa leylih intaan cadceedi soo bixin intaan cadceedu dhicin habeenka gobol ka mida maalinta qaybteeda hore maalinta qaybteeda dambe intaba aayaddu waa tilmaamaysaa culamada badh baa waxay yidhaahdaan tasbiixaha waxa ugu weyniba waa salaada waayo 7 meeloodoo salaada ka mid a la tasbiixsadaa salaada ka mid a sida ogeed baa ilaahay wuxuu qur-aan ku tilmaamaya fii buyuutin adina allahu an turfac wayudkara fiiha smuhu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walaasaal waxay ku fasireen yusabixu lahu fiiha bilguduwi walaasaal ilaahay loogu tukanayo oo lagu tasbiixsanayo gelin hore iyo gelin dambaba waayo waa shaqada ugu badan ee uu qabto qofka maxay salaada tukanaya waa shaqada ugu badan ee laga rabo dadka masaajida camiraya inay sameeyaan xadiidkii mucaawiyata bn alxakam nin baa soo galay masaajidka iyadoo la hadla buu ogaa salaada waagii hore hadalkuna uu iska banaanaa adigoo iskaga jira haddii midi kula hadla waad iskala hadlaysay dabeetana qur-aan baa soo degay tilmaamaya inaan hadalku banaanayn kadib nimaan waxba ogeyn baa soo galay salaadiyo lagu jiraa midi hindhisay dabeetana alxamdu lilah ayuu yidhi waa la maagay marka raggii salaada kula jiray baa isha ku wada gubay ama waa loo sacbatumay waa loo tilmaamay inaanu waxa kani waxuu sameeye ahayn thakalatkum ummukum buu yidhi markaa hooyadiin idinka goblantay maxaa isha igaga gubaysaa dabeetana waa loosii tilmaamay inaanay saas saxayn salaada markii laga baxay ayuu nebigu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu leeyahy fawallaahi ima dagaalin oo ima weji tubin oo ima maagaynin qof wax sameeye igama dhigin weligay ma arag buu leeyahy macallin ka fiican nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intuu ii yeedhay buu wuxuu igu yidhi buu yidhi ina hadihi الصalaaة laa yasluxu fiiha shayء min kalaami الnaas warniyahow salaada gudaheeda dadka warkooda wax ahay uma suubamaan ee waa maxay inamaa hiya الtasbiixu wالtakbiiru wa qira'aة اlqur'an buu nebigu ku yidhi salaadu waa tasbiixaat iyo takbiiraat iyo qur-aan la akhriya buu nebigu ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam sidaa awgeed salaada waxaa ka mid ah allahu akbar markaad tidhaahdo tasbiixaad baa lagu furtaa subxaanaka allahuma wabixamdik sawt kama mid ahaa tasbiixda lagu furto tabaaraka smuka watacaala jaduka walaa ilaaha hayruk waxaa kaloo ka mid ah subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah waxaa ka mid ah 3 jeer in la yidhaahdo
tasbiixaat iyo takbiiraat iyo wax la mida kuwaasoo dhami waxay yihiin maxay iftitaaxiyada salaada lagu furto waa nooc ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah salaada marka la rukuucsanya maxaa la yidhahdaa subxaana rabbiya alcadiimi wabixamdih ama subxaanaka allahuma wabixamdik iyo wax la mid ah marka la sujuudsanya maxaa la yidhaahdaa subxaana rabbiya alaclaa wabixamdih iyo wax la mida tasbiixaad la mida qur-aanka markaad akhriyayso ee salaada tukanayso haddaad aayaatu tasbiix aayad ka mida soo marto waa la tasbiixsadaa imaamkaagu hadduu qaldamo ama shay qalati uu ka dhaco salaada maxaa la sameeyaa subxaana allah baa la yidhaahdaa haddaanad faatixada aqoon aad iminka islaamtay ama aanad hore u aqoonin maxaa la sameeyaa halkii faatixada tasbiixaad baa lagu bedelaa subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar ayaa lagu tukadaa halkii faatixada ayaa lagu bedelaa waa 7 meelood bay yidhaahdaan culammadu iyo salaada ka mid ah oo 7daba la tasbiixsado waxaan leenahay ma marka dhibtoo quraba tasbiixaadku maya cagsigana waa loo adeegsadaa bini aadamku hadduu nimco helo wuu kibraa nimcada bini aadamku kibir buu ka qaadaa ama tacajub iyo isla weyni dunida maanta aynu ku nool nahay maalmihii la guulaystay aad baa loo faanaa waddan waliba maalintuu madaxnimada qaatay ama xornimo qaatay ama kan qaatay maxaa la sameeyaa isticraad alquwa dowladda iyo dadku waxay xoog lahaayeen barayd baa la maraa askar baa la mariyaa ciidamo dowladda xooggeeday muujisaa bini aadamku inta badan afraaxda wuxuu ka dhigaa meel uu xooggiisa muujiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu barayaa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo wa min waraa'ihi almuslimuun markaad guulaysataan ama nimco heshaan ama badhaadhaysataan kibir ma jiro tawaadacuu lilaah ilaahay baa idiin hiiliyeye ilaahay isu dhuldhiga saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu u tilmaamayaa shaqada ugu fiican ee la qabtaa inay tahay maxay tasbiix idaa jaءa nasru اllahi wاlfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja markii hore waxaa la tilmaamayay markuu maka joogay ee jabay ee laga xoog batay ee la aqbali waayey ee cidhiidhigu haystay wuxuu samayn lahaa tasbiixsaa la yidhi markuu maka ku soo galay isagoo 8,000 oo askari wata oo reer maka isdhiibeen oo uu meesha oo dhan ka taliyey oo dowladda islaamiga calankeedu ballaadhay ee reerihii iyo qabaa'ilkii ka soo horjeeday wufuud ay bilaabeen reerin loogu yimaado reer walba isagoo odagiisu horkacayo ayaa ilaahay nebiga la hadlaya calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii waxa la leeyahay idaa jaءa nasru اllah wاlfatx haddii ilaahay guushiisu idiin timaado iyo furashadiisu oo wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja oo aad aragto dadkoo diinta u soo gelaya koox koox awal midhmidh baa la la'aa marka qofkii islaamaa la tumayey iminkana waa koox koox iyo bulsho bulsho haddayd aragto dadkoo diinta saa u soo gelaya baa ilaahay yidhi maxay qabo ma faanfaan baa la yidhi oo kibir markaa oo sheego raganimadiina iyo xooggiina inaad ku meel marteen maya ilaahay wuxuu leeyahy markaana waxaa samaynaysaan fasabbix bixamdi rabbik wastakfirhu ilaahay subxaanahu wa tacaala u tasbiixso adigoo ku dheehaya mahadnaqiisa weliba dunuubtiinni ina ilaahay idiin qabanin iyo gaabiskaa diinta ka gaabiseenna istikfaar kala kaalaya baa ilaahay leeyahy markaynu salaada tukanno maxaynu samaynaa waxa ugu horreeya la qabtaa waa maxay astakfirullah salaad baaba tukatee maxaad astakfirullah u leedahay waxa weeyaan salaadaadaan ahayn tii loo baahnaa halkii loo baahnaa ma gaadhsiisna ilaahow waa uun intaan awooday baad leedahay iyadoo qalqaldan baan kula hor imi ilaahu dembigayga cafi baad leedahay kibir kuma hayo adigoo salaad tukaday ayaa haddana waxaad qiraysaa addoon ilaahay inaad tahay oo rabbi intan in ka fiican inuu kaa mudnaa dabeetana istikfaar baad ku bilaabaysaa kibir kuma hayo saa daraaddeed qofka muslimkaa waxaa la faraya marka uu dhibtu haysatiyo kadeedkuna inuu tasbiixda badiyo marka uu nimcada iyo badhaadhaa helana inuu tasbiixda badiyo labadabana waa labadii shay ee ilaahay nebi moxamed faray calayhi salaatu wasalaam waxaana ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya 13 aayadood
oo 11 suuradood ku jira ayaa ilaahay wuxuu kaga warramayaa kownkan aynu ka jirnaaba dhammaantii inuu tasbiixsanayo innaguna inaynunay kuwa loo taaglaayahay innaga iyo intii ibliis raacday saa daraaddeed ayaa ilaahay wuxuu inoogu tilmaamaya qur-aanka kaa'inaadka waxaa jira dunida dhammaantood inay ilaahay u tasbiixsadaan في سورة الرعد في سورة الإسراء أنبياء توبة صبا صاد حديد حشر الصف الجمعة التغابن كون قرن با تصبيح سنة يا إلهي إليه ويصبح الرعد بحمده با إلهي إليه أنكت كني وتصبيح سنة يا إلهي إليه سوى كل هي ولي بحمد قال له إلهي قار بينو قور ربي شمبرها يبورها نبي أيوب سوى لما يتسبيح سجري وسخرنا مع داود الجبال يصبحنا والطير با إلهي نبي داود بانو سخر بوره إنا إلى تصبيح صدان إيا شمبرها با إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحينات المامية كائنات كنا منه تصبيح سنيا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا با إلهي سموين كتضبضا يدلك إيا وحا كبدا الشرابة إلهي بيو تصبيح سلام ربنا ليه وإن من شيء إلا يسبح بحمده وح شرابة ما تشران إلا يا إلهي بيو تصبيح سلام ولكن لا تفقهون تسبيحهم با إلهي قاب كيو تصبيح سلام بيدان إذنكو أقوانين مخلوقات كورد موا تصبيح سنة يعني إذنكم بانا قوم با إلهي إن لي قاب كيو تصبيح سلام وهي كائن كستا شريتان كستا وح كستا الدنيا دا كور كيدا صارا قاب قارو إلهي وتصبيح سدبو ليه إلهي باوحين لي ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتصبيحه والله عليم بما يفعلون وحاكم ككور ساران ودمي إيا شمبره با إيا بالاشا كالفدين إيا إلهي وتصبيح سنيا كل قد علم صلاته مدولي بوا قرنيا qaabkii uu ilaahay ugu tukanaya qaabku rabbigii ugu tasbiixsanayo rabbina waa garanaya wallahu alimu bima yaf'alun bale waxa dhacday ahdi nabi muhammad alayhi salatu wasalaam mu'jizaadkii ilaahay siiyay waxa kamid ahaa in makhluuqaadka qaar kamid ah tasbiixdooda la maqashiyo saxaabada xadiiska bukhari abdullah ibn mas'ud aroorinaya wuxuu leeyahay walaqad kunna nasma'u tasbiih at-ta'ami wa huwa yu'kal حيدا النبي محمد فردي الله عنايو أيان أركي نبيله تصبيح سنة سيد الله لغيو حيدا الله عنايو الراشرة أيولي ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل طعام كو تصبيح سريا نمغلين أبو ذر حديث كالو علماء حسن كنت المام يسوي حليه وحن شاهدها هو النبي عليه الصلاة والسلام حلقه فرديان لا فرديي مركاسو قرور النبي قاضي قرور حسام تغانين دغ حتى يرير ايو نبي كورو سو قاده وقاسو سيدا يري دبيتنا فصبحنا في يدي قعنت النبي محمد بقرور تصبيح سنه يا صارني وحانا نغو جيري بو ليه ابي بكر يا عمر يا عثمان يا قولداسا جوجتي دبيتنا dadko dhami waa maqleen tasbiixda qurur xaas oo nabigu gacanta ku hayo dabeetana nabigu abi bakar buu dhiibay radiyallahu anhu أبي بكر نيسوا صعب كهيو تصبيح سطي قرورحي مركاسو علي أبي بكر نبي عليه الصلاة والسلام نبي هدنا وحو ديبي عمر بالو ديبي عمر وقع عنك كهي هدنا تصبيح سطي ضد كورد من ومغلى يا حلقة فردية مركاسو عمر نبي كو علي وسا عثمان لو ديبي عثمان وقع عنك كهي تصبيح سنيس انت يدي كلو ان لو ديبي بولي يا ابي ذرو فلم يسبحنا مع احد منا بولي قال يا هيا كلام marka loo dhibo muu tasbiixsanayn bولي laakiin wuxuu sheegay inuu Abi Bakar iyo Umar iyo Uthman ba gacantoysa sidii tii nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wa min mu'jizaati nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam iyo karaamooyin ka dhacayay saxaabada waaweyn idan waxa uu xadiisku tilmaamaya
aayadda quraani waxay sheegaysaa ama aayaadka quraani waxay sheegayaan kownkoo dhan inuu tasbiixsanayo qaarna tasbiixdooda in la maqlayay dabeetana waxaa laynoo tilmaamayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadkii la noolaa wax ka mida inay tasbiixsanayeen xayawaanadii ama quruuraxa la hayaa inuu tasbiixsanaya cuno la cunaya inay tasbiixsanaysa bale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy nebi ka mida nebiyadii ilaahay ayaa quraanjo qaniintay dabeetana meeshiiba guba buu yidhi dabeetana ilaahay baa wuxuu u waxyooday an qarasadka namlatun axraqta ummatan min alumami tusabbix hal quraanjii inay ku qaniintay miyaad u gubtay baa la yidhi ummadaha ilaahay ka mid oo tasbiixsata quraanjadaas uu gubay baa waxaa lagu tilmaamaya inay tahay maxay ummadaha ilaahay ka mid oo tasbiixsata ayuha alaxiba si laynoo dareensiiyo tasbiixdan iyo muhimadeeda 7 suuradood oo qur-aanka ka mid ah ilaahay ku furfuray 5 suuradood oo qur-aanka ka mid ah xamdala lagu furfuraa 7 ka midana tasbiix baa lagu furfuraa markaasaa waliba 7da tasbiixda ka mida siyaq halgadisan ugu soo aroortay qur-aanka tasbiixaadku iyadoo ficil maadi 4 jeer bay ku soo aroortay iyadoo mudaarica 20 jeer bay ku soo aroortay iyadoo siiqa amar 18 jeer bay ku soo aroortay ismu faacil marratayn yani siyaqa la sheego af carbeed oo dhan inta ugu badan leh uu ku soo arooray 7 suuradoodna ilaahay wuu ku furfurtay iyadoo ism ama masdar ah iyadoo 3 ficil ba ficil maadi iyo ficil amar iyo mudaaric ba سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سورة الحشر هي سورة الصف آيدك ودلبضب وإنتن سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سورة حديدنا في بان كجرين سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدح دا سورة ضد بوحي كب الأبمان سبح لله فعل ماضية لا بك لو حيكون بالأبمان ما حي فعل مضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم جمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تغابنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبح اسم ربك الأعلى 7 suuradood ba waxay ku bilaabmaan maxay tasbiix waxay culimadu yiraahdaan waxay tilmaamaysaa muhiimadda ay leedahay ilaahay inoo tilmaamaya marka 7 quraanka ka mid ah suwarkiisa lagu bilaabay dhamaantood tasbiix lagu bilaabay 5 ka midana xamdala lagu bilaabay ilaahay wuxuu ina farayaa salaad iyo meel walba inaynu tasbiixsanno waxa quraanku inoo tilmaamaya rususha sababaha loo soo diray inay ka mid tahay in ilaahay loo tasbiixsado nabi maxamed ilaahay muxuu leeyahay risaaladii dhameeyay nabi maxamed waxyaabo lagu cileeyay ee sababta loo soo diray waxa ka mid ah inuu dadka baro tasbiixda inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila waxa loo soo diray litu'minu billahi baa la yiri iyo wa tusabbihuhu bukratan wa asila inaad ilaahay rumaysaan rasuulkiisana rumaysaan rasuulka ina weynaysaan oo ixtiraamtaan allana u tasbiixsataan galin hore iyo galin dambaba bal ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa wadiifatu nubuwaba shaqada nabiga laga rabaaba inay taatay saadaradeed buu nabi muuse muxuu leeyahay waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira ilaahay wuxuu ka baryayaa walaalkiina in nabi looga dhigo wanikii walaalkii mala ugu duca fiicnaa uu nabi haarun nabi muuse walaalkii wuxuu rabbigii u weydiinaya in isna nabi looga dhigo oo uu noqdo mid wasiir ah wasiirku yaani muaawin mid taageera ilaahu walaalkay wasiiriga dhig buu leeyahay ushdud bihi azri igu xooji wa ashriku fi amri taladana ila wadaaji waayo kay nusabbihaka kathira buu leeyahay ilaahay oo saan xoog ugu tasbiixsano
يقول لما أنا النبي هارون تصبيح له هبضة تيبو لي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وأعطاني صوت المامني نبي النبي يونس إنه تصبيح له حكومة بادي أي تهي وكان نبي موسى إلهي نط الماما يمركي ويرى أنكو أركو الرب يري أركي كريمة سيدا بالبور طائق هذا يسوقون عطوا ده أركي كريسة بور تردلا شيء موسى مير بالي مركو سواك عيم حيري فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بيري سبحانك مركو ميرابي بإلهي يروح قبلابي إلى وحمكه فنان تادي تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نبي زكريا مركو إلهي بريه إنه المسيح المليري والوسينية إله علامة يلبليري أيو طلبضي علامة سوحة إلهي كدق قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا لكن شقاق أبابا ليري شقاق وامحي واذكر ربك كثيرا وصبح بالعشي والإبكار بإلهي تصبيح ده بطصو سويل دوني ميسيد تصبيح ده بدي بإلهي كويري نبي الله زكريا نبي عيسى إلهي وحينات الماما يسنا آخر مرك الله صوص على الله يراهدو ما دا يري أنا جيه هو يدا إلهي أنا قدكتا إنه قبل بدون قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. بل إلهي سبحانه وتعالى النبي الله محمد بوحكولي قل وحتى هذا بل يري نبي محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نبي محمد با إلهي كو يري وحتى هذا تاني واتشتكي إلهي يقول صادري يعني كو يريو waxaad kaloo ku dartaa baa la yidhi jidka aniga iyo intay raacdayba calaa basiira ayaanu dadka ugu yeedhaynaa wa subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin. ilaahay qur-aanka kuwa ammaanay wuxuu ku ammaanay inay yihiin ahlu tasbiix inamaa yu'minu biaayaatina aladiina idaa dukiruu biha kharuu sujada wasabaxuu bixamdi rabbihim wahum laa yastakbiruun tatajaafa junuubuhum can ilmadaajic. إلهي كو أماني إلا تلمامي آخره إني مالها سرك وقلي يهين إلهي وحول آيات كيغا كو الرميي وحي يهين وكلية إنما وأداة الحسر في اللغة كو النب نور رميي وكو نقرب إلهي لي كو النب إيمان كو هل حكي للربي قاري وكو مرك إلهي آيات كيسا مغلان داتا يغو سجودية وصبحوا بحمد ربهم بإلهي تصبيح سنة ييغو كله هي إلهي مهد نقيس إلهي وحاوت الماما يا إنت كأقدوي صفة الغوية قانين تصبيح تهي تحميدة ملائكته إنا لنحن المصبحون بإليه أنك وحانوناي كوة شقادو دبط هاي محي إني تصبيح صدان إلهي وحاوت الماما يا تصبيح سقورا ما هين أنا ييغو تودو كلا قعب لهين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون هبين إيام مالين بوي تصبيح سنة كلا قوم ماله أدونك إنت اللي تشوقا وكا آخر مركلا تغانا وترى الملائكة حافين حول العرش يسبحون بحمد ربهم بإله إليه وحا إلهي نوت الماما يددك إنت مضاني إنا أهل التصبيح أيه تذكر ربي تعالي وشندق دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أهل الجنة إلهي وحكوت المامية دعوة دي وركود بينه يهي محي سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام بإلهي وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه أيها النبي محمد كورنا عليه الصلاة والسلام حديث صحيح مسلم قيا له ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله ور إلهي أكتي وحلو وجه علي مكوشيغا قلت يا رسول الله هابو ويدي سنة يا إلهي رسول كسيوها أخبرني بأحب الكلام إلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده بنبهير
warka alla agtiisa loogu jecel yahay waa subxaana allahi wa bixamdih. xadiid kale oo isna saxiixu muslim ku yaalla abidar uu warinayo waxaa nebiga la weydiiyey buu yihi ayu lkalaami afdalu, war yaa u fiican? qaala ma stafa allahu limalaa'ikatihi buu nebigu yidhi aw licibaadih, war waxa ugu fiican ka ilaahay uu u doortay malaa'igtiisa ama se addoomihiisa uu u doortay oo maxay ah subxaana allahi wa bixamdih. ayuha alaxiba, waxaan leenahay marka tasbiixdu waa cibaadaadka aan waktiga lahayn. marka koowaad habeen maalin subax wakti walba la sameeyo, waxay yidhaahdaan waa cibaadaat almutlaqa. waa marka labaad tasbiixdu dikri way noqotaa afka laga yidhaahdo oo subxaana allahi wa bixamdihi, subxaana allahi alcadiim, subxaana allahi wa bixamdihi cadada khalqihi wa zinata carshihi wa ridaa nafsihi wa midaada kalimaatih. waa dikri lagu wardiyo oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo awraadda ugu fadli badan leh inay ka mid tahay. waa mar kale ee camal way noqotaa salaada lafteeda tasbiix lagu tilmaamaa. low kuntu musabixan la atmamtu waa kii cumar lahaa. haddaan tasbiixsanayo yani haddaan salaad tukanayo weeyaan waan dhammaystiri lahaa. waktiga waxaad la yaabto markaad aragto waa la yidhaahdaa, waxaad jeclaysato markaad aragtana waa la yidhahdaa. nebiguna wuu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam. hadduu la yaabo subxaana allah inuu yidhaahdo, wuxuu jeclaysta hadduu yahay subxaana allah inuu yidhaahdo. marka dhibtu ku haysato waa la yidhahdaa sidaynu soo aragnay ee ilaahay uu nebi maxamed ku leeyahy fasabbix bixamdi rabbik. marka nicmada la helo waa la yidhaahdaa, oo markaad gaadhigaaga fuulayso ama faraskaaga fuulayso maxaa la yidhaahdaa subxaana aladii sakhara lana hada. waa nicma, cinda xusuuli nicma bay culammadu yidhaahdaan tasbiixdaa la badiyaa, subxaana aladii sakhara lana hada wama kuna lahu muqriniin. markay nicmadu kuu cusboonaato waa la yidhaahdaa. nabiyullaahi muuse markii uu miyirkiisii rabbi u soo celiyey muxuu ka bilaabay? qaala subxaanak. marka aad ducaysanayso waa laga horaysiiyaa oo ilaahay wuxuu nebi maxamed ku yidhi fasabbix bixamdi rabbik wastakfirhu. qabla alistikfaar waxaa la faray inuu maxay tasbiix horaysiisto. markaad dembiga gashe ka soo noqonaysid waa la yidhaahdaa oo suuratu nuun saddexdii ama kooxdii beerta lahayd ee aabahood masaakiinta wax siin jiray ee markuu odaygii dhintay yidhi aan masaakiinta u goyno oo habeenku intuu isku jiro goosanno, ee ilaahay subxaana wa tacaala go-aankaa markay gaadheen ayaa salaadii ay soo kaleheena waxay u yimaadeen beertii oo ilaahay xalay gubay. ilaahay baa habeennimadii beertii masaakiinta inaan wax laga siin lagu tashaday taa'ifun min rabbik. markay miiraabeen ee dambe toobad keenayeen muxuu yidhi qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun. war miyaanan idin odhan buu leeyay tasbiixsada oo ilaahay u toobad keenoo soo noqda. idan markaad dembiga gasho ee ilaahay u soo noqonaysana waa la tasbiixsadaa. midhaha laga helaana dee waa in ilaahay balaayo dhan kaa farajo, waa in janno lagu helo, waa in dembiga lagu dhaafo. nebigu muxuu tilmaamay man qaala subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim fii yowmin 100 mara gufira dunuubuhu wain kaana midla zabadi lbaxr. saxiixaynku ku yaala qofka maalin subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim 100 jeer yidhaahdaa dembigiisa waa la dhaafaa buu nebigu yidhi xataa hadday badda xoorkeeda leegtay. badda waxa mawjad ka kaca badaha xumada saaran xataa dembigaagu hadduu leegyahay waa waxa lagu dhaafo. waa waxa balaayooyinka ilaahay ku fudaydiyo, waa waxa laabta rabbi subxaana wa tacaala kugu sharxo. abaa hurayra waxaa laga wariyaa alxaafid ibnu xajar xadiidkuu soo saaraya ibnu sacd sanad saxiixa uu ku tilmaamayo buu ibnu xajar wuxuu leeyahay sanadkuna waa saxiixe. abaa hurayra waxaa la yidhi wuxuu yidhi ina abaa hurayrata kaana yusabixu kula yowmin 12,000 tasbiixa bay yidhahdeen. abaa hurayra maalin kasta 12,000 oo jeer buu tasbiixsan jiray baa la yidhi. markaasu wuxuu odhan jiray usabixu biqadri dembi, waxaan tasbiixsanayaa intaan dembaaba in leeg. innaga dadka dambe weliba abnaa'i saxwa dambe
siday bidac ula dagaalamayeen bay diintiiba qayb ka mid a raaciyeen in la wardiyaa waa min addiin waa min usuul iddiin tasbiixdeenu waxay ku soo hadhay maxay salaada markaynu ka baxno haddii aynan cararinba intaa uun salaadaha dabadooda subxaan allah weliba subxaan allah tiradeeduna qaldantahay faruu baynu caynkaan idhahnaa soo maaha nin garanaya inuu 3 yidhi miyaa inugu jira waa yaryi qof subxaan allah yidhaahdo tiradu u saxanta faruhu baasaa la yidhahda una subxaan allah acbaar markaad caynkaa tirtidhaahdo faraan ah waad dhammaysaa abu hurayrana wuxuu leeyahay maalintii waxaan tasbiixsadaa maxay 12,000 oo jeer buu tasbiixsadaa baa la leeyahay isagoo leh usabixu biqadari dambi ilaahay subxaanahu wa tacaala dikrigoo dhan waa layna faray horta dikrigoo dhan waa lagu xasilaa tasbiix qura maaha nabi maxamed waa kii ku tilmaamayay ninkii salliga uu u sharxayay idan yukfa hamuk buu ku yidhi haddaad salliga nebiga badsatid calayhi salaatu wasalaam ku salliya nebigu haddaad salliga nebiga badsatid buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hamigaaga waa lagaaga filaanaya tajriba cid kale ka wari maayo anaa tajribeeya marka bala ku qabsato haddaad salliga nebiga boobto ilaahay wuu kaa faydaya waa kaa faydmaysaa haddaad tasbiixda boobto waa kaa faydmaysaa waa awraad dikri oo dhan inta layna faray ayaa tasbiixda gaar loo sii tilmaamay yaa ayuha aladiina aamanuu udkuruu llaha dikran kaiira wasabbixuuhu bukratan waasiila baa ilahay yidhi war kuwa iimaanka laga helayow udkuruu llaha dikran kaiira ilaahay si weyn u xusa badiya wardigiinna markaasaa gaar loo sii sheegay maxay wasabbixuuhu bukratan waasiila gelin hore iyo gelin dambaba u tasbiixsada wadkur rabbaka kaiira wasabbix bilcashiyi walibkaar ayaa ilaahay kaloo ku leeyahy ilaahay in badan xus gelin hore iyo gelin dambaba u tasbiixso cagsigeedana qur-aanka way ku soo aroortay iyadoo la leeyahay tasbiixda badso dabeetana dikri oo dikrigana badi kay nusabbixaka kaiira wanadkuraka kaiira baa soo aroortay idan waxaynu ku khatimaynaa imaamu albukhaariyi raxmat ullahi calayhi kitaabkiisa wuxuu ku khatimay kitaabka saxiixu albukhaari imaamu albukhaari wuxuu ku khatimay xadiidka macruufka saxiixaynkaba ku yaala taqaaniina uu nebigu leeyahy kalimataani khafiifataani cala allisaani thaqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila alraxmaani subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim wuxuu nebigu tilmaamay laba eray oo carabka ku fudud oo miisaanka maalinta qiyaame ku culus oo ilaahay agtiisa laga jecel yahay bal inta sifa ay wadataday carabku shaqo miyuu kaaga baahan yahay haddaad dukaanka miisayso waad odhan kartaa haddaad gaadhiga wado waad odhan kartaa wax kastoo aad qabanayso waad odhan kartaa waa laba kelmadood baa la yidhaha carabka ku fudud oo miisaanka ku culus oo ilaahay agtiisana laga jecel yahay وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أيها الأحبة أنا dareemaya in dadka wardigiisu yaraaday baan can qasdi u doortay inaan tasbiix ka warramo xamdalana waynu ka warramay haddaynu waqti u helno laakiin waxaan uga dan leenahay in dadka muslimiinta ahi waxaa dhib ina haystoo dhan waxyaabaa lagu fayda bay ka mid tahay waxa aad culays dareemayso waxa rabbi kaaga kicinaya tasbiixda iyo wardigaasaa ka mid ah ilaahay waxaan ka barayaa subxaanahu wa tacaala inuu inaga yeelo kuwa iimaankoodu dhabta uu noqdo ee tasbiixdooda iyo dikrigooda iyo xamdaladooda iyo tahliilkooda iyo takbiirtoodu ay tiro badato sala allahuma calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam subxaanaka allahuma bixamdik walaa ilaha illaa anta nastakfiruka wanatuubu ilayk waxa lagu khatimo majaalista la fadhiyana dee tasbiixdaasaa ugu dambaysa